WhatsApp ku gelinaya Facebook gelinaya Fiber ku gelinaya ayugu ku gelinaya waxyaalaha bini aadamku hadda ku tawaasulo ayuu kelimo iftiriya been gelinaya markaas hal mar waxa taalacanaya khalaa'iq aan xasri lahayn waagii hore intay gaari kartay way koobnayd maanta si xaalku halkaas u gaarsiisay ittaqillaaha ya rajul ilaahay ka baq naftaada u baq aakhiradaada u baq beentan aad sii daynayso eed khalaa'iqda ku sii daynayso cuquubadeedu waa taa waa qabrigay ku ciqaaban yihiin dadka aan tilmaamayno aakhiro laysma gaadhin ilaahay hortiisana weli lama tegin naartii weynayd iyo xaalkeeduna waa laaban yahay warkan furan iyo xubnahan furan iyo dhaqankan furan ee aan xad lahayn ee alla ka cabsigu ku jirin waa wax kugu soo noqon doona aad uga xisaabta nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh mucaad ibnu jabal baa wuxuu weydiiyey rasuul ilaahayow carabkanaga waxa ka soo baxayeen ku hadlayna ma naloo qabanaya waxan ma laysaga daba imaan doonaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alayh wasalam mucaadow hooyadaa ku weydayey dadka naarta ma waxaa ku ridoo madax ama dabadaba ugu tuuraayay ilaa wixii carabku shaqaystay mooye wixii carabku gooyey iyo beertuu beeray unbaa dadka naarta ku daadisa rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii la weydiiyey maxaa u badanoo dadka naarta geeya rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh afka iyo carabka wax ka soo fulay iyo xubinka taranku wuxuu sameeyey ayaa u badan wax dadka naarta geliya buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa markaad maqasho si alla saad ka badin weydayeen haddaad doonayso xisaab aadan ka bixi karin aakhare inaad ugu tagtana waad fasaxan tahayee wax alla waxaad ka badin weydayeen haddaad doonayso inaad xisaab xadidan iyo badbaado aad aakhare ugu tagtana carabkaaga iyo xubnahaada xakame zuurka iyo beenta iyo baatilkana iska ilaali sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaa'i waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waaltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله